qasab ku haysto dhulka oo asagu isdooranayo oon cidna tala iyo taala midna ka rabin in la yiraahdo waan ku aqoonsanay dadka aad xoogtay si fiican u xoogo hayso saasay u dhacday ogolaashii wuxuuna u muuqdaa dhurwaal leeyahay dhurwaal tarheer xoolo cunahayo lagu yiri xoolaha maada cunay ma cunahayo inta kale ilaa la yiri uu ogyahay inta kale cunuro lagama xukumo Axmed Madoobe gudaha Soomaaliya waxaan cadaynaynaa in shirka uu intaas oo jeer uu ka baxay uu telefoon banaanka la istaagay oo laga hadlayay dibadda laga amrayay Kenya iyo Imaaraadka iyo meelan Soomaaliya gudaheeda ahayn Soomaaliya waxa laga xukumaa Soomaaliya waxaana xukunta Soomaali caalamkuna ma faragelin karo bal inay kuwa cadow la oo aan tabar badan ku dhaamin iyaga ay u taliyaan ma aqbalayn Axmed Madoobe inuu sugnaado oo uu ka mid ahaado dadka xaq ma laha because Soomaali ma ahan lagama xukumo Soomaaliya intuu banaanka u buuxo soo qaadanaya talaasho sheeye wuxuuna keenayaa golaha dhexdooda inay golaha iyo madaxweynuhu aqbalaha ka dhageystaan warka sheeye oo si wadwadaan xaq oo leeyahay waxay ahayd inay yiraahdaan Soomaali ma tihid inta kuna hadlaysana Soomaali ma ahan dalka haystidna ma haysanaysid in la yiraahdo oo meesha lagu qabtay Axmed Madoobe warkiis annagu waxaan raanaa gobolka gadaadaan nahay oo matalayno odayaalka dhaqanka gobolka Axmed Madoobe nama matalo mana aan dooranin laba sarna ugu maana darin mana nasiix kuma yimaana shirka ka socda Samareeb oo maalin walba afar jeer way intuu carqalataynayo oo gadalku ku maranayo wargadalku ku maranayna haddaan Soomaaliya tahay xisaabtan oo kalsoonidaada iyo dadnimadaada iyo sumaacada aad ku leedahay Soomaaliya dhaxdeeda oo maamul goboleedyada sumaacada ay ku leeyihiin iyo sharafta ay ku leeyihiin ku xisaabtan gaday iska daa maamulka hadda aad ku joogtana mid sax ma aha waa maamul xooga waa la og yahay kaligaabad guri isku soo xirtay waxbaad iska afduubatay waa lagu tanasulay madaxweynuhu meel gaar ah noqon yiri maxaa doorashada maanta Soomaaliya oo dhan u dhaxaysa gado waxa nimaysaa adeerow dambiila tahay baasha caalamka iyo Soomaaliya ninka madaxweyne Ilaahay ka dhigo waxaan ka codsanaynaa Axmed Madoobe maxkamad in loo soo taago in loo maxkamadeeyo shariicada islaamka loo soo taago dadkii uu xasuuqay ilmihii uu rajooyinka ka dhigay iyo dadkii uu gablamiyay ayaa dariiq u taagan goortii ku haboonaatana maxkamad baa loo fuuli doonaa waxaan leeyahay shirka haddaa dad wax la qaybsanaysa la qaybsay geda ka tanasul haysashada gedo ka tanasul gedo Soomaalida kala wada sameeyay waxaan leeyahay Maxamuud Daniyow waxaa la yiri Saciid Daniyow waxaa la yiri waa la doogayaan la dacaaroon maamul goboleed baa tahay walaalkana tahay meeshaasaad joogtaa meesha laba meelood oo kala fog baan kala joognaa ina adeero waxa aad ku taageeraysa Axmed Madoobe haddayna cayb aad shakhsi u qabto ama qolo u qabto tahay aday kula haray wax Ilaahay as abuuray oo ku dhimi doonta ma jiraan haddaad adiguna nin fiican tahay budlay walaala ka dhig الله ويلا تأكل كينيا سلك جلتي والصومالي أنا ولي أنت رفاضي إن بتجلي ودياني ماي قال لي هدي فتروح لكبر من لهاي لوك دمب لا أنا قال لي بليان لوك دمب من لكبر الصومالي كوي دهب مع قدوات جده هويشت مالي كلام في جلات دولة كل الجلب أوجي أنا قمت أضيع الخير جد أنا أحمد مدوب أبارك كسان والجلاتنا كسان والجلاتنا كسان إسك جابسو لن كيني سالك جلدي صومالي بملأه ونكيني ما أنا صومالي أنا لن كيني سالك جلدي اللي تي صومالي هاي تحبه صومالي دللي صومالي بملأه waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arinta gorgortanka oo madaxda Soomaaliyeed ay isku mari laayihiin oo ka socoto Samareeb nimankan odayaasha Axmed iyo ninka la yiraahdo Saciid waa niman Soomaaliyeed waxa fiican wax ayaga
aan wax u ahayn ummad ayaga eelkooda oo sokeeyo oo aan wax dhibaal u ah inay saacad walba daba taagnaadaan waxaan ku boorinayaa in ay ka tanaasulaan gobolkan Gado haddii ay wax u tari lahaa Axmed muddo badan buu xukumay intuu xukumay wax qabad hadduu u qaban lahaa saaka inta shirkaan jaraa'id ka qaylinaysa ma qayliseen waa la soo dhaweyn lahaa wax qabadkiisana la arki lahaa sidaa darteed meel aan laga rabin inaad ku caqabadaysid ummadda Soomaaliyeed masiirkeedii ama gobolka Gado dhibaato weyn fariintaas waxaan u dirayaa Axmed ha iska daayo jiitanka gobolka wixii kale oo isku xisaabtamaya ku xisaabtama laakiin Gado awal intuu joogay ama mar walba doorasho uu soo maray ama uu xukumay hadduu dadkan dad uu asaga uu wax u yahay ay ahaan lahaayeen ama horumarintii bulshada uu wax ka qaban lahaa ama kaabayaasha dhaqaalaha uu wax ka sugi lahaa saaka intaana qof ah kama hor imaateen laakiin waxa lagu diidan yahay waa la arkay xukunkiisa wuxuu qabtayna waan ogeyn waxaan shir jaraa'id ku qabanay degmada Dowlad Soomaaliya annagoo ah odayaasha dhaqanka degmada Dowlad Soomaaliya waxaan shirka jaraa'id u qabanay inaan ka hadalno shirka samareeb ka socdo arrimaha la isku hayo oo ku saabsan gobolka Gado waxa weeye Jubbaland State uu leeyahay laakiin madaxtinimada Axmed Madoobe ma aqoonsanin 4 sano oo horeysay yaan Axmed Madoobe iyo Gado ay kala tageen dadka Jubbaland walaalo weeye dhima dhaxyaalo waxa weeye laakiin Axmed Madoobe Gado ma xukumo 4 sano hore xukunkiisa la bartay waxaa lagu bartay Axmed Madoobe 2 jeer buu gobolka Gado yimid degmada Doolow yimid annagoo odayaal aan la kulanay dhalinyaradu la kulmeen ururada bulshada oo ururka hooyooyinka la kulmay maxaa kaaga qorshaysan markii la yiri Axmed Madoobe degmada Doolow oo 2 jeer timid maxaa kaaga qorshaysan markii la yiri adinkaan waa idin ka rabnaa annaga waxa nooga qorshaysan lama arko dowladda Soomaaliya fan baa ka socday deeq waxbarasho oo dhalinyarada waxbartay baa ka socotay wax badan baa ka socday abadkiis hal qolo oo ka dhisay Axmed Madoobe waxa la xidhay dowladda ku waday lama arko gobolka Gado 4 sano oo horeysay oo xoog isku doorto dadkii dooranayay inta meel la galay dadkii odayaasha ay leeyay qaarkood airport ku xiray baa yay gobolka Gado asoo ku kala tagay ma xukumi doono dibna ma xukumi doono haddana ma xukumo wixii la tashanayo le gobolka Gado Axmed Madoobe hala siiyaan ama garab ku siinayaan aniga ma qabo inay taladaas ay la qaataan ama ay ku raacaan waxaan soo joodin lahaa dowladda Soomaaliya madaxda u sareysay heer federaal iyo heer gobol baa meesha fadhiyo Axmed Madoobe nin asaga go'aan gaari kara ma aha nin wax xukuma ma aha nin gadaal hoggaanka laga haysto weeye nin tala ka go'do ma aha nin madaxweyne state noqon kara ma aha hatta gobolka Kismaayo uu joogo asoo ku soo hoyo Gado iska dhaafiyo waxba ka noqon kara sidaa darteed waxaan soo joodin lahaa aniga in go'aan Axmed Madoobe aan loo hakinin doorashada Soomaaliya ka dhici lahayd laga tashado nin waxa weeye Uhuru Kenyatta waxa uu hayo weeye nin wax goola ma aha nin wax gaari kara go'aan ma aha annagoo ahaa odayaashii gobolka Gado gaar ahaan dowladda Soomaaliya odayaasha ka soo jeeday waxaan maanta shirkan jaraa'id aan u qabanay shirka ka socdo Samareeb oo shirka afraadaha oo intaas caqabadaha hortaagan uu yahay Axmed Madoobe oo caqabada hortaagan shirka ay tahay Gadaha liigu wareejiyo andana reegade ama odayaashooda aan nahay ama dhalinyaro aan nahay annaga shirkaas wax nagu matalo oo maanta fadhiyo oo Gado matalaya ma jiraan kolkii laga reebo federaalka wax maamul goboleedaha oo maanta tan matalayo ama Gado ka socdo ama madaxweynaha ama xildhibaan ama wasiiraha oo dowlad goboleed ka socdo oo nagu matala shirkaas ma jiro Axmed Madoobe ma matala Gado iyo Axmed Madoobe waxa dhex yaala Soomaaliya waad ogtihiin Axmed Madoobe dadku laayay baa joogo waxa weeye shaqayrada uu madaxda bixida la dhacaa joogo dadkii dhaqaalahooda oo cunay baa joogo shalana annaga maana dooranin asagaa 3 nin oo maarta madaxtooyadiisa ka diran kala soo dhex baxay oo yiri waa baarlamaanka meesha uu joogana waa askartiisii qof reegada matala oo Axmed Madoobe oo maanta inta ka socdo shirkaas ku matalay ma jiro Axmed Madoobe yuuna been u sheegay Soomaaliya waxaad ogaataan 7 degmo oo gobolka Gado inuu shirkan ka socdo Axmed Madoobena uuna nagu matalin Axmed Madoobe Gado ma rabto lagumana qasbayo ha ogaadeen beesha caalamka iyo cid danaysa Soomaaliya Axmed Madoobe Gado laguma qasbi karo adduunkana la isma qasbo Axmed Madoobe waa ogtihiin kii uu shaqeeyaa
annagana kenya ciyaalkanaga iyo dadkanaga bay laysay waxaana dhex yaalla waad ogtihiin nin kenya u shaqeeyo oon annagana matalin in annaga nagula qasba ma doonano waa hadday jirto cadaalad iyo federaalism waddanka soomaaliya uu ka jiro soomaali weyn ha aragto nabadoonnada soomaaliyeed ee isimadu ha arkeen axmed madoobe geda ma matalo raallina loogama aha mana imaan karo soomaali kastoo dhan way imaan karta inta madaxweyne dowlad goboleed geda waa imaan karaan laakiin axmed madoobe ma imaan karo lagama aqoonsano taas waa intaas midda kale madaxweyne siciid deni soomaaliya ha la arko magaduu madaxweyne ka yahay magadaa ka maqan oo puntland ka tirsan wuxuu geda maartay uu uga eexanaayo oo rabo inuu kenya u siiyo deni ha noo sheego denioo waxaan ku leenahay dad walaalahaan nahay dad ehel ahaana wada dhashaan nahay reer puntland baa maanta taqalalaasa dhex taalla adaa madaxtooyada xoog ku joogo baarlamaanka puntland baa kuwa afduuban adeero dadkaada xalliso markaad dadkaaga xallisid geda haddaad ama wax u dhimasid ama waxa u tariso markaa u soo gudub soomaali waxay tiraa fariixa ama waxba axmed madoobe fawdo weeye cirkii dhulku diiday isbaada dowladda federaalka u dhigtay meeshuu joogana waxba kama oga gedana waxba kama oga amarka wuxuu ka qaataa ninka la yidhaahaa uhuru amarka ka qaataa ninuu uhuru ka amar qaata iyo geda shaqaa isku maray geda waagi horeba axmed madoobe waxaa fariinta kismaayo waxaa nooga keeni jiray ninka la yidhaahaa cabdirashiid baa fariin nooga keeni jiray maamulkiisana ma soo gaarin shaqana naguma lahayn dad dalkooda iyo gobolkooda iska joogaan ahayn waayadii hore hadda dowladda federaalka ee salka ballaaran baa ilaahay baa mahad lehe ciidan noo keentay oo ciidan difaaca noo keentay axmed madoobe hadda wuxuu saa u yeelanaya waa ciidanka meesha in laga qaado ciidamada kenya qabsadaan oo gobollada gedo ay qabsadaan kenya qabsato dan kaloo is leeyahay male geda in la qabsado oo ciidamada kenya qabsadaan ayuu wadaa fariix xalan baa waxalo axmed madoobe geda lagama rabo lagamana ogolo waana naqaan jubbaland bilowgeedii iyo dhammaadkeedii dadka wax ka dhisi baan ahaa nin yaqaan baan aniga maalinkuu is dooranayo guriga keligii la dooranayo waa joogay axmed madoobe caqabadii dowladda federaalka ku haybo gobolka inuu geliye rabaa mooye gobolkana ma rabo wax uu rabaa lama yaqaan fikraddiisana waa ognahay wuxuu rabaa kismaayo inuu kenya ku daro kismaayo kenya inuu ku daro ayuu rabaa annaga gobolka annaga ama siisu madax banaan ama dowladda federaalka ku xiran dowlad sal ballaaran baa ku xirannahay dowladda federaalka ku xiran caasi weeya dowladda federaalka waa diiday gedana ma rabo isagaa fawda waxaan la yaabanahay caalamka axmedoo waraysanaya oo dhegaysanaya axmedoo warkiisa dadka dhegaysanaya la yaabanahay axmedoo dowladda federaalka waqtiga waxa ka dhameeyey waa asaga waqtiga waxa ka dhameeyey waa asaga inay fawda dhacdo oo kismaayo uu ku dara kenya ayuu saa u yeelanaya axmedoo nooma imaanaya mana rabno mana doonayno waxaan u sheegayaa shirka samareeb ka socda axmedoo geda si uu ku imaan kara iyo si uu ka shaqayn kara midna ma jirtee adduunku waxaan ka codsanayaa iyo muxuu caalamka axmedoo in laga hor qaado maxaa dowladda federaalka isbaarada u yaal in laga hor qaado ka codsanayna salaam